Asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkaani waa Run Official. Magaceyguna waa Run. Fadlan waan ku cusubnahay meesha. Like noo saar, comment wanaagsan noo soo qor, subscribe noo saar. Insha Allah maanta waxaan ka hadli doonaa taariikhda ummadaha. Waxaana ka bilaabi doonaa insha Allah Soomaaliya. Taariikhda Soomaaliya. As-Soomaali sida dowliga ah loo yaqaano Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Jamhuuriyad As-Soomaali Federaaliya. Waqtiyadii hore loo yaqaanay Jamhuuriyad Dimuqraadiga Soomaaliya. Waa wadan dhaca Geeska Afrika. Dhulka Soomaaliya wuxuu weligiisba ahaa xarun dhexe oo maamusha ganacsiga qaybo badan oo ka mid ah dunida ka mid ah. Intaasi waxaa dheer waxaa deegaanka Soomaalidu ahayd mid wax soo saar leh xagga beeraha iyo kheyraadka kale. Dunida inteeda kale manfaacadsato siday ay isku raaceen in badan oo taariikhyahanno ah. Geeska Afrika wuxuu xidhiidh la lahaa boqortooyadii Faraaciinta waqti iminka laga joogo ilaa 3000 sano sagaal, kuwaasi oo ganacsi toos ah la lahaa meelo badan oo ka mid tahay Saylac iyo dhulka Uduga Puntland. Si kastaba ha ahaatee, waqtiyadii dhexe waxaa soo shaac baxay boqortooyin Soomaaliya ah kuwaasi oo ku saleysan beelo iyo deegaano. Saldanadii Cadal, Saldanadii Geledi, Saldanadii Warsangeli iyo Saldanadii Majeerteen waxay ka mid yihiin kuwa ugu awoodda badnaa ee waqtiyadii dhexe ka arriminayay deegaanka Soomaalida. Dhammaan boqortooyinkani waxay horumar ku sameeyeen xiriirka ganacsi iyo siyaasadeed ee mandaqadda Geeska Afrika la lahayn dunida inteeda kale. Insha Allah intaas ku soo koobaynaa. Marka waxaan codsanaynaa please subscribe, like, comment. Insha Allah idinkaan idin sugaynaa waan ku cusubnahay meesha. Fadlan kala kiciya janaalka.